haddaba dagaaladii sokeeya ee ka dhacay waddanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu ahaa mid aanan waxba reeban isagoo galaaftay dad iyo duunyaba deegaan iyo weliba daaqsin intaba waxa uu ahaa dagaal umuladoox oo weliba cidna aanan ka tegin wuxuu saameyn baaxad weyn leh ku yeeshay dadkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulkaasi iyadoo dagaalada iyo dagaalyahanadaba aysan wax u aabayeeleenin haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo iyagu ka mid ahaa qaybaha bulshada ayuu dagaalkaasi si toos ah ama si dadban saameyn ugu yeeshay iyadoo fanaaniin badan ay ku dhinteen dagaaladaasi Soomaaliya ka dhacay ee sokeeye ha ahaadaan kuwii kacaanka lala galay ahaadaan kuwii taliskii Maxamed Siyaad lala galay ama aado kuwii dambe ee Soomaalida iyada dhexdeeda isdooxaysay fanaaniin badan ayaa iyagu lagu dilay si aan qabiil ah iyo weliba siyaabooyin kale oo kala duwan dagaaladii ka socday gudaha waddanka Soomaaliya haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa daawadayaal dhowr fanaan oo iyaga lagu dilay qaybo kala duwan geeyiga Soomaaliyeed ee dhulka Soomaalida xilligii dagaalada sokeeye iyadoo fanaaniin badan si toos ah loo dilay iyagoo looga danleeyahay aan qabiil kuwa kalena ay iyaguna ku dhinteen si lama filaan ah oo xabadi guryahooda ugu tagtay ama madaafiic intaba aynu ka bilaabeena fanaankii weynaa ee codka dahabiga lahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu laxanka macaana iyo weliba muusikada heesihiisa dhammaan ay caan baxeen oo ay noqdeen kuwa hirgalay waa fanaanka Allaha u naxariistay Axmed Gaceete Yuusuf Axmed Gaceete waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii Soomaaliyeed ee iyagu fanka Soomaalida ka qayb qaatay kobcintiisa iyo weliba kor u qaadidiisa wuxuu ahaa fanaan cod dahabiya leh oo halaasi ah fanaan mujtamaca Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed aad ugu taqaano wuxuu ahaa mulaxin la sameeya laxamada weliba musician wuxuu ahaa fanaan heesii uu laxamada u sameeyay jibigoodba ay noqdeen heesa caan baxay oo hirgalay Axmed Gaceete fanaaniinta wuxuu ahaa nin aad u dabeecad wanaagsan degan akhlaaq leh qof walba oo ka mid ah fanka Soomaalida iyo mujtamaci uu ku dhacnoolaa intaba ay ixtiraam ay u hayaan cid kastana ay u sara istaagto Axmed Gaceete oo isagu aanan ahayn nin qabiili ah welibana ahaa nin ay u siman yihiin mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaa isagu waxaa gacan ka xaqdaran welibana si dulmi iyo kibir ah ay ugu dishay magaalada Hargeysa waagii dagaaladii u dhaxeeyay ciidamadii jabhadii SNM iyo weliba dawladii iyadoo rajiinka ahayd ay uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Axmed Gaceete waxa uu ku sugnaa magaalada Hargeysa isagoo weliba aanan ka qayb qaadan qalqalatooyinka iyo weliba xaaladihii qasnaa ee markaa ka socday geeyigaasi iyo dhulkaasi ciidamadii rajiinka ee dawladii kacaanka waxa ay ku toogteen bartamaha magaalada Hargeysa kasoo horjeedka tiyaatarka Axmed Gaceete Yuusuf waxa uu dhintay oo kaliya in qabiilka jabhadda SNM ee dawladda xilligaas ku kacsanaa inay u badnaayeen dadkii uu ka soo jeeday ee isaaqa ahaa sida awgeedna fanaan caan ah oo weliba mujtamacaas dhexdiisa caan ka magac iyo maamuusna ku leh in loo dilo qabiilkaada ayaa jabhada ku kiciyay dawladdii iyadoo weliba si qabyaalad bareed ah oo cad ay u dileen ciidamadii rajiimka ahaa Axmed Gaceete wuxuu lahaa heese aad u macaan badan oo mujtamaca Soomaaliyeed caanka sida dulmiga caashiqa kada inaan ku jecelahay weydii dad heestii habsan oo kale heestii bal ila dhageysta iyo kuwa kale oo aad u badan Axmed Gaceete waxa uu leeyahay hablo badan oo fanka Soomaaliyeed qiimo iyo qaaya ku leh sida fanaanadii weyneed Allaha u naxariistay Qadra Daahir Cige Amina Cabdillaahi weliba Marwe Maxamed iyadana Allaha u naxariistay